wasiirkii arrimaha dibadda oo la weydiinayo awdal istaad ka waran war awdal istaad waayo yay tahay awdal istaad waa inaba gada bursiya oo nacay saam qaybso xumadiina iyo cadaalad darradiina nacay weey war wallahi inaanay dhacay oo billaahi inaanay dhacay oo tallaahi inaanay dhacay oo naa'id ka yeelay nimanka la yiraahdo isaaq waa boqol sagaashan waalan iyo 10 miir qabta weeyaan baa leeyahay 10 miir qabay dagaaladii bay kaga dhinteen salaam ummadda ila intaas soo dawladood baa bala ixtiraam maxay dhul siisan waayeen aqoos maxay dhul ugu bedelan waayeen bal waxaad ku hadlaysaaneed ummadiineed waxbaad maamulaynaa leedihiineed xildhibaana sheeganaysiineed salaadiin sheeganaysiineed darada boqol baa leeyahay sagaashan iibaan beeshay iyo 10 iibaan qabta weeyaan baa leeyahay markaad eegto imika 10kiina way la iibaan beeleen geeda bursi waxa la yiraahdo waa boqolo sagaashan hurdiyo 10 soo jeeda weeyaan baa la yiraahdo 10kii soo jeedayna way naga dhinteen hadaan geeda bursina aqoonsiga noo hayso beled aan leenahay ay noo hayso weligeed yaana heli ma rabne isaaqow waxa la hadlay waa isaaq waxa weeye ciise waa boqol baa leeyahay ciise waa reebtigayo waa boqol baa leeyahay 9 gaal iyo 10 islaama lagu sheego 9kii baa iyaga u muslimay meel aan Soomaali taalo maanta ana dhiig ka qulqulay asad dhimasho ka dhacay ciise jiro 9kii baa muslimay ciise hawiye waa boqol baa leeyahay waxa leeyahay waa 9 doqon iyo 10 fariid bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad dhowr arrimood ma halkan maanta ka hadlaya waxa weeye horta baaq dheer waxaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed ee meel walba isku dhameynaysa ee dilkooda meel walba taagay ee dhiigoogii xalaalsatay ee waxa weeye dhagarka kala galaysa waxaan inuu dhagar yahay dhaaftay ilowday ayaan baaq dheer u dirayaa islaamnimadii ha lagu soo noqdo Soomaalinimadii ha lagu soo noqdo hal la daayo dhiiga iyo dilka iyo waxaan la jideystay ee xaaraanta waxa weeye war moodaysan reer hebel baa nagu soo durkay reer hebel baa halkan qaadanaya leedii wax ka weyn baa yaale wadankaba Soomaali in laga tirtiro la dagaal rabaaye dantiina arka oo Ilaahay isku kii soo jeediyo oo Ilaahay dhiigiina xakala xaraatimay dagaalka meel walba ka hulcaya ka soconaya haday tahay kilal haday tahay cirigaabo haday tahay in ka bariyaysa dagaalka Ilaahay ay naga qabto dadkana waxaan leenahay war miirka u soo noqdo kaasi waa ka kale waxa la yiri daarado waa boqol saako waan kaftamaya daarado waa boqol baa leeyahay 9 iibaan beeshay iyo 10 iibaan qabta weeyaan baa leeyahay markaad eegto imika 10kiina way la iibaan beeleen oo markaad u fiirsato arinta danay iyo Axmed Madoobiye ku dhaqmayaan 10kii daarood miir iibaan qabtayna way iibaan beeleen leesma dileeba hawiye waa boqol baa leeyahay waxa la yiraahdo waa 9 doqon iyo 10 fariid waxaan u maleynayaa inuu u dambeeyay ciidi 10kii fariido 9kii doqon meesha isku soo hareen haddaanay ahayn 34 sanadood sidaa ma ahaateen xamar iyo koonfuri 9kii doqon baa isku haray geeda bursi waxa la yiraahdo waa boqolo 9 hurdiyo 10 soo jeeda weeyaan baa la yiraahdo 10kii soo jeedayna way naga dhinteen haddaan geeda bursina waxaan noqonay 9 wada hurda dagaaladii bay naga raaceen waxa weeye ciise waa boqol baa leeyahay ciise waa reebtigayo waa boqol baa leeyahay 9 gaal iyo 10 islaama lagu sheego 9kii baa iyaga u muslimay meel aan Soomaali taalo maanta ana dhiig ka qulqulay asad dhimasho ka dhacay ciise jiro 9kii baa muslimay ciise waxa la yiri nimanka la yiraahdo isaaq waa boqol 9 waalan iyo 10 miir qabta weeyaan baa leeyahay 10kii miir qabay dagaaladii bay kaga dhinteen salaam
sagaashankii waalayd baa isku soo hadhay intaan uga socday weeye xaqiiqadeedaan caddaynayaa isaaq hadduu suldaan leeyahay iyo hadduu siyaasi leeyahay iyo hadduu caaqil leeyahay ummad isqabanayn oonan qaladka midkalayka kale ka jawaabayn oo isku wada qanacsan oo is wada saxaysa isaaq baa la hayaa xalay waxaan arkay oo igu kadeeday hadalka wasiirkii arrimaha dibadda oo la weydiinayo awdal istaad ka waran war awdal istaad waayo yay tahay awdal istaad awdal istaad waa inama gada buursiya oo nacay saam qaybso xumadiina iyo cadaalad darradiina nacay weey annaguna cadaadinay oo niri idinka yeeli mayne horta aan sacad u kala baxnaa niri weeyaan ma yuhuud ba mise waa xabashi waad ku qanacsantihiin gabigiinu kelmada wasiirka weydiinaysiin war waxa dadka weydiinaysa waa wax qaldan mid yiraahdo waa la idinka waayay saaqo 34 sanadood war bal saam qaybsina sameeya wax dawlad u eegna sameeya dawladna ha noqono gooni aan isku taagno annaga waxay idinku dhawaaqnayaan haynaayo waxaad nagu soo oodeen intaad carartaan oo isqanciseen oo saam qaybsi diideen oo wax walba inaga kumanta dhahdeen oo is wada qanciseen waxaad ku soo oodeen gobolka awdal aqoonsi aan siisano Soomaaliya intaad ku soo oodeen awdal aqoonsi aan siisano iyo isku qanciseen war wallahi inaanay dhacayn oo billaahi inaanay dhacayn oo tallaahi inaanay dhacayn oo naayid ka yeelayn aqoonsi baan ku iibsanaynaa dhul idinkama yeelayno waalidu halkii u dambaysay in la gaadhay idinka yeeli mayno maalin dabadeedna ayaanaa maqlin idinkoo ereyada soo qaadanaya haddaad xildhibaano tihiin haddaad suldaaniin tihiin haddaad qawaatiin war dhulka iyaga aqoonsi la siisan maayo lama siisanayo aqoonsiga noo hayso beled aan leenahay ay noo hayso weligeed yaanaa helin ma rabne isaaqow waxaan la hadlay waa isaaqow isqaba uma noqo oo ha isku qancin adigu reer ahaan ha iskugu qancine dee nin qalloocan reer walba u joogaa dadkaa ka qabsade in qumad iyo in qaldan bay dadku isku dhex socdaane qaladkan aad isku wada saxayso jooji awdal istaad waa inama gada buursiya maaha dad xabashi iyo yuhuud midna maaha waxa weeye awdal istaad waa inama nacay sidaa waxu wadaa annaguna cadaadinay oon leenahay jooga waryaa yeeli mayna card haddaad sii weynaysiin laakiin dee garab bay helayaanoo haddaad sii buubuunisaan sii weynaysaan iyagaad wax u taraysaan wax kama ridaysaan waxaan idiin sheegayaa reer yow isku noqda dawladda la yidhaahdo Somaliland gadabuursiya isaaq baa leh haddaan runta idiin sheegayna ciise dawlad buu leeyahay waa gorayadii ciyaarta lugta kula jirtay hadday samaatana ku wada ridaysay hadday xumaatana ka wada saarayso weeye daaro dawladuu leeyahay lugtuu kula jiraayo haddii ay ciyaartu hagaagtana uu ku soo ridi hadday xumaatana dawladiisu u laabani adeer Somaliland cid dale ay ka dhaxayso eelihi waa gadabuursiya isaaq 34 sanadood ayaan war waxaan wada yeelana kaarana ta adeer waxa wanaagsan malaha annagoo wax gaar iska sameysana inaguna wax gaar iska sameysatino aynu jaaroon haana wanaagsan baa malaha wanaagsan isku noqda oo isla yaaba isaaqo waa isaaq waxaan la hadlay taas waa ta dawladda aan dooranay Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland maalin hore halkan waxaan ka idhi oo soo baxday tii ugu horeysay iyo tii ugu dambeysay Soomaaliland dawladda dhista bay mid noqonaysaa
maantana waan ku celinayaa wax isbedela ma arkayo gobolka wasiiradii waa la magacaabay wax isbedelay ma arkayo waxa weeye dawladdaasi ay dushaada ku baabiin dushaada ay ku baabiin saamqaybsi waynu ku ballanay wixii aan ku ballanay fuli waxa weeye bedelkan kugu dooranayna ma ahayn wasiiriye madaxweyne uun ma ahayn booska madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ma ahayn uun waxay ahayd dhulku dadweynuhu ka cilan yahay ee calool xumada ka qaaday afarta waxay ahayd qaybta maxkamadda saldhigyada xeer ilaalinta afartaas ahayd afartiiba halkii bay fadhiyaan calool xumadina way taallaa iyo cudurkii ay ku beereen ummadda dadweynaha maxaa isbedelay dadweynuhu dhulkay ka cabaadeen ka ciilanaayeen waa sidii adiga madaxweynuhu macaalig weli maanaa noqon laakiin waxaan kuu sheegaynaa dawladda aad dhisayso tii Soomaaliland u dambaysay isaaq iyo gadabuursi ku kala tagayeen iyo tii gadabuursi iyo isaaq walaalaynaysa run ka dhigaysay midoon ha noqoto labadaa bay mid noqonaysaa kama dhaxaynaysa dib looma baryootamayo oo de saam dambo la sugaama yaale saam qoysir isaaq reer baan u dooranay reerkii u dambeeyaa tahay waxa weeye labadaa mid bay noqonayeen midkaad ku soconayso ku soco adiga intaa kuma dhaafinaya laakiin reerkan isku wada raacsan ee hadba ninkii gadabuursi laga magacaabo wada daba yaaciya xalay waxay wasiirka arrimaha dibadda way weydiinayeen arkayay xildhibaanka iyagii ka fadhaysan la'aa aan cagaha dhulka saara hooy cagaha dhulka saara oo 10kii baa idinka dhintay miyir qabay danaga waxayni noqonayna hadaan isqabayna idin qabanayna ka fadhaysan waalido dhul baa ummadda ila intaas soo dawladood baa bala ixtiraam maxay dhul siisan waayeen aqoonsi maxay dhul ugu bedelan waayeen bal waxaad ku hadlaysaan ummadiineed waxbaad maamulaynaa leedihiineed xildhibaana sheeganaysiineed salaadiin sheeganaysiineed madax waaweyn oo kale sheeganaysiineed leedii dhul hasiisan aqoonsi waxa ayaana idinka maqlin erigaas waa eri xaaraan maqtaca ah yaanu dhagahaygu maqlin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh